السلام عليكم maanta casharkeena labaad ee isu qaybinta waxaan ku bilaabaynaa xoogaa yaroo horudhaca oo ay ahayd casharkii shalay inaan horudhac uga dhigno isu qaybin sidoo kale waxaa loo yaqaanaa isku qaybin ama qaybin isu qaybin isku qaybin ama qaybin saddexdaba waa loo yaqaanaa ingiriis ahaana divide baa la yidhaahdaa astaanta calaamadeedu waa qaabkan iyo qaabkan iyo qaabkan kale waa hab la isugu qaybiyo lambarada tirada xisaabta isu qaybintu waxay ka mid tahay afarta hab ee asaaska xisaabta si ka duwan isu goynta kala goynta iyo isku dhufashada isku qaybintu waa kala jabinta lambarada oo loo kala jabiyo tiro kale tusaale ahaan haddii lambarka 6 loo qaybiyo lambarka 2 wadarta iyo jawaabtu waa tirada 6 oo loo kala jabiyay laba meelood taas oo ah 3 iyo 3 marka jawaabtu waa 3 laba tiro marka la isu qaybinayo wixii ka soo baxa waxa loo yaqaanaa wadar iminka haddii aynu 10 u qaybino 2 waxaa noo soo baxaya 5 shantaas ayaynu oranaynaa waa wadar sharciyada isu qaybinta ama division rules marka la isticmaalayo isu qaybinta waa in la helaa tiro la qaybin karo sidaa darteed lambarka eber kuma jiro xisaabta isu qaybinta mana aha mid la qaybin karo iminka eber haddaynu 2 u qaybino wadarta ama jawaabta inoo soo baxaysa waxay noqonaysaa eber uun lambarka kowna waa mid ma bedele tirada isu qaybinta ah iminka haddii aynu 2 u qaybino 1 jawaabtu waxay noo soo baxaysaa 2 uun oo halkii waa ma bedele waxba ka bedel ma xisaabtii un bay noo soo baxaysaa haddaynu 1 u qaybino tirada la qaybinayo markay ka yar tahay tan loo qaybinaya waxay wadartu noqonaysaa jajab tusaale ahaan haddii 2 xabo oo tufaaxa aan u qaybino 4 qof kasta wuxuu helayaa badh ama half 0.5 ama 2 loo qaybiyo 4 ama 1 loo qaybiyo 2 oo tufaaxa marka half bay helayaan way noqonayaan jajab bay xisaabtii isu bedelaysaa waanu arki doonaa insha Allah tusaalayaasha haddii aynu eegno maanta labadan tusaale on baynu kusoo koobsan doonaa haddii alla idmo ta koobaad haddii aynu ka bilowno 18 loo qaybiyo 2 18kii waxaynu gashanaynaa radicalkii labadiina dibadda ayaynu dhiganaynaa marka waxaan raadinaynaa tirada marka 2 lagu dhufto 18 siisa waa 9 9kii xagga sare dhiganaysaa 9 2 ku dhufo waa 18 labadii 18aad baad soo kala jaraysaa waa min ever iyo ever jawaabtu waa 9 xagga sare ku saaran marka jawaabtu 9 bay la mid tahay talabaad haddaynu eegno 20 loo qaybiyay 2 waxaan sameynaynaa radicalkii baynu marka hore soo warinaynaa 20kiina xagga hooseynu gashanaynaa labadiina dibadda ayaynu ula baxaynaa waxaanu raadinaynaa tirada marka 2 lagu dhufto 20 siisa waa 10 xagga sare ayaan dhigayaa 10kii ayaa labada ku soo dhufanaya waa 20 kala hoos dhigaysaa waad kala jaraysaa eber iyo eber bay soo baxaysaa jawaabtu waa 10 xagga sare saaran marka jawaabtu 10 bay soo baxday baan oranay maanta insha Allah maanta casharkeena halka ayaynu inagu joogayaa waa inoo iyo bari casharka dambe iyo tusaalayaal badan baynu arki doonaa inta ka horeysa wassalaamu calaykum